shirkan jaraa'id waxaan ugu talagalnay u qabanay dhacdo ka dhacday garoonka labadii maalmood oo la soo dhaafay iyo arrimo siyaasadeed oo ka socda deegaankii gobolka Gadood degmada Garbaharey oo maanta uu ku aadan yahay inuu tago ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Roble arintaas waxay tahay nin u sharaxnaa gudoomiyaha degmada Garbaharey Cabdullaahi Cabdi Jaamac la yiraahdo iyo anigu oo Garbaharey looga wacay odayaashii dhaqanka ay u yeereen oo la rabay dadka la gudbinayo liiskooda in lagu daro yaanu wada soconay markaan elaboorka tagnayna waxa la yiri nimankii agensiga diyaaradda inta lala hadlay baa la yiri nimankaas haday baxayaan diyaaraddu ma kacayso laba maalin bay arintaas ayada dhacday anaga cid noo timid oo aan leenahay hebel iyo hebel baa noo yimid ama hay'ad noocaas ah noo timid ma leh laakiin agensigu sidoo noo keenay inay waxay nagu yiraahdeen ra'iisul waxa idin joojiyay oo diyaaradda baajiyay oo na amray hadaad raacaysaan nimanka nabad sugidda ah oo ka shaqeeya maxaan ku raahdaa airportka inta kadib anagu dadkii maantay waan fasaxnay inaanan lugoynin dadka shacabka ah yaanu u tagin garoonkii oo kaga baaqanay maadaama loo maalin aan celinay inta kadib ujeedada ma bixi kartaan safarka iyaga loo yiri waxay ahayd ninka degmada Garbaharey looga yeertay oo mas'uuliyadii deegaankaas iyo odayaashii reer Siyaad ay u yeereen inay gudbiyaan ay rabeen ra'iisul wasaaraha hortiisana ka gudbiyaan iyo nimanka wasiirada maamul goboleedyada u dhiibaan ninkaas diidma la diidan yahay way ahayd odayaashii dhaqanka oo Garbaharey joogay oo reer Siyaad oo soo xulista gudoomiyaha iska lahaa Garbaharey bay saacadan ku xiran yihiin Garbaharey bay maxaabiis ku yihiin inay ra'iisul wasaaraha arkaan baana loo diidan yahay ummadii masayrkeeda inay ka hadasho danteeda ka hadasho wixii ayaga anfacaya ka hadlaan waa laga hortaagan yahay wiil ina kulala la yiraahdaa wuxuu yiri waxa adinku rabtaan ma soo gudbin kartaan waxaan anagu rabnaa gudbinaysaan nabad sugidda waxay farritaankoodu yahay baad ku shaqeynaysaan war ummadda Soomaaliyeed oo gobolka degan oo xuquuqda leh oo deegaanka ah oo jiritaankooda iyo ayahooda ka hadlayay in la afduubo ra'iisul wasaaraha maanta Garbaharey tagahaya shaqo u taalo way asagoon arkin odayaashii reer Siyaad baana la rabaa inuu ka soo laabto Garbaharey ra'iisul wasaaraha waxaan uga digaynaa oo u sheegaynaa oo ku wargelinaynaa oo ka codsanaynaa nabadoonnada reer Siyaad oo xabsiga ku jiro oo la diiday inay ku imaadaan adigoon arkin ha ka soo kicin Garbaharey ugaaskii mareexaan oo dadkii masaakiinta ahaa oo Garbaharey u socdo diyaaradii laga celiyay oo ku xayiray garoonka iska dhoofayna reer Siyaad buu caawa dhex jooga Garbaharey buu dhex jooga mareexaan buu dhex jooga ilaahay baa la idinku dhaarshay ninka dadkiinii uga tagay garoonkaas ugaas buu idin yahay iyo inaad u soo fayshaan idin ma qabatay la xisaabtama ninka ka soo gudub waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed baa u diro dareenka ummadda Soomaaliyeed mar baa la damcay in la afduubo dad baa u kacay ka badbaadiyay afduubkii loo afduubahay Soomaaliyo Fahad Yaasiin la yiraahdaa diloonhayo waxa gida qasahaya waa asaga ina kulane wiil yar oo la adeegsaday way ma samayn kara waxa uu sameeyay Fahad Yaasiin waa naga xishoon waayay Soomaali buu ka xishoon waayay anagu naga xishoon waayay ummadda Soomaaliyeed Fahad Yaasiin caqabad buu ku yahay jiritaanka ummadda Soomaaliyeed caqabad buu ku yahay doorashada Soomaaliya caqabad buu ku yahay maamulada arkay oo fahmay oo waxa uu ku hayo dalka kan dareemayna Jubbaland iyo Puntland baa kamid ah waxa ay la qaylin hayaan oo la dhawaaqayaan oo u diideen inay ka qayb qaataan dhowr kishiro hore baaqatay sababteedu waxa weeye Fahad Yaasiin bay ogaadeen nin qarsoon oo dalka kan caqabad ku ah inuu yahay hadduu og yahay madaxweynaha dhibaatada Fahad lagu hayo madaxweynuhu raalli kama noqdeen cid gaarsiisu la yahay anaga dadka u xignayna waan arki laanahay madaxweynaha dhibaatada iyadii kala ma hadli karno laba asbuuc ka hor baan aragnay waan kala hadalna 14 cunug oo ku dhimatay buula xaawo oo arday ah oo ardun ah oo wixii dhalay iyo wixii ehelka u haba xanuun ku hayo arintoodii baan ugu tagnaa ina ugaas xaashi iyo maxamed cabdullaahi farmaajo ugu tagnaa jawaabtii uu nasiiyay madaxweynuhu waxay ahayd carruurta Kenya laysay Soomaaliya ma layna Kenya laysay baan ugu yiri carruurta iyada iyo dadka iyaga iyo calooshooda banaanka taal oo rasaastii Soomaaliya ay ku dhacday oo Kenya waxay soo riday anagu aan arkin maxamed cabdullaahi farmaajo carruurtii Kenya laysay buu ugu yiri reer Siyaad oo carruurtiini Kenya inay laysay maxamed cabdullaahi farmaajo anaga noo sheegay mana xaqireyno
sideed nin oo reesiyaad aan ku wada soconna sideed nin oo reesiyaad baa lagu cayaa lana warsan hayaa maxaa idin haray haddii caruurtiinii dhamaatay oo dawladdu ay leysay la yiri Kenya leysay odayaashii dhaqanka oo maxaan ku raahday kurka idin ahaana garbahaaraysa ka faadiyaasin ugu xirayeen waxa idin haray oo idin laaban oo sugaysaan maxay tahay aniga waa la celin karaa dambiile waa noqon karaa xabsiga waa la dhigi karaa sharci waa in la hayaa waa in dunuubtan kale la sheegi karaa waxaasad ku xiranta waa in la dhigi karaa sharciga ka weyn ma jirto laakiin ayadoo dambi lahayn in la boorka la istaago odayaashiina garbahaaray ay ku xirxiran yihiin caruurtiina la yiraahdo Kenya leysay damiirkiina la tijaabinayaa meesha uu taagan yahay ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa meel ay joogtaba fariinahan u dirahayaa dhibaatada dalkaas iyo deegaankaas ka jirto inay hoos u faaqidaan shanta maamul goboleed Soomaaliya ka jirto wixii lagu soo heshiiyay waxaan hayn baa garbahaaray ka socdo Jubbaland waa garbahaaray waa loo diiday أحمد محمد إسلام قربهاري إنه تجوا اللوديد محمود سيد إنه تجوا اللوديد وزير كريمها جودها إنه تجوا اللوديد مدحوينك وحجينا دي واللوديد وحن أمد الصوماليات معمول قبليات يدا باش عالمك تريتانك أمد الصوماليات عندي كيف فكري سبق أدرها واحد قربهاري كسعودة واحد قبضك أوي دورشة الصومالي رئيس الوزراء هنا الوقوف شلها هي رئيس الوزراء أرنتاس هوسها وفاقده واحد نبي سجده أي وضع واحد تذكر ربي معها dadku waxay rabaan ha ku shaqeeyo afduubka la gadaay ummadda Soomaaliyeed jawaab aan ka sugeynaa